السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير سيدا ويدشين بكسو هذا فيديو كله جيمكي برايتون أن وحير كهذلنا كدب أرسنال يسوق هذا يوجد بينا runtii geemka anigu horta waxaan dhaho garan maayo wax maartay wasaq oo ahaa ciil baa iga qabtay wallahi qaabkii u dheelayeen Arsenal. Brighton ha ku gaarsiiso 80% adoo gurigaaga joogto banoon ha ka qaadato wax disgusting oo waxaas waqti in caalad ha ku dhacdo Arsenal geemka qaar marka ay dheelayaan maaragt hadaawanin baa ku qaban war ciyaar waa la iska badiyaa ciyaar waa laga badin karaa 3-0 la sheegtay 5-0 laga badi laakiin banoontaada dhil banoontaada qabso gurigaaga joogtaa banoon qurux badan soo bandhig banoon ha laga qaato 3 gool oo kulligoodba mid walba midka oo u yar xanaaqaada uu gaarsiinayo 60 degrees yaa laga xiraa Arsenal balaayaheedan ku dhacdo khadkan dhexe ee Arsenal maarad hadaan la bedelin wax ilaahay unta oo soconay male Partey waa in la tuuro Shaka waa in la tuuro Jorginho waa in la tuuro ragga waa daalayhiin da'way ku jiraan ragga midka ugu yar 30 sano jir ah kullu way ka wada dhamaatay inkastoo aysan ku xirnayn inaad tahay qof markii teamka markii pressure adag la soo saaro inaad tahay qof Bruntis iska haysan karo Man City fiiri pressure markii la soo saaro Rodri iyo Silva iyo banoon tartiib adoo ma dadoo soo raacanaya banoon daf waa isku dhiidiyo banoon adaa lagu daalin nimanka laakiin marba hadii arkaan in la soo aaday banoon lagu soo raacanayo iga tur kan iga dib goolkiibaha naf laga raadin xagga ku celi sideways banoonta tur maanta 12 waxaana wax Champions League la aadi karo ma runtii banoon waa la iska badiyaa waxaan way dhacdaa season aanan banoon game aan maartay 3 game 4 game aan laga badanin markay ugu yarto oo adag tahay ma jiro laakiin sharaf isku yeel banoon banoon yaa laga qaadanin banoonta yaa laga hayin rag pressure la dhaqmi karo oo markii ay la soo raacanayo dhinac walba laga soo maro oo team Europa League u dagaalamayo markii aad la dheelaysid banoon tartiib gool ha xiran hadaarto banoonta ka hayso inay tabartooda tus inaysan kugu soo ordi karin tus laakiin banoon ha laga qaato hal lagu garaaco xoyaan lagu reebanin guriga intii lagu imaaday dhankalaasa laga badiyo waxa Arsenal bisa lagu imaadaa wasaqda dhash hase ahaatee ciilkayga hayaan maanta kuwa waf laga deenayay iyo geemka xumaaya darad ay dheeleen Arsenal waxa loo ogolaaday sanadkan inay isticmaalaan lacag ka badan 200 milyan wuxuuna maartay wararka qaar sheegayaan in Arteta uu doonayo inuu laba ciyaaryahan oo khadxa oo qala inuu saxiixo labada ciyaaryahan waa Caicedo iyo Declan Rice labada ciyaaryahan in uu saxiixayo ay sheegeen sidoo kale wuxuu ku soo darayaa difaac bedel u noqda Saliba waxaana la sheegayaa in ciyaaryahankan Crystal Palace u dheelo oo maartay aad u indhaha ugu hayo u bogay ciyaartiisa ciyaaryahankan inuu ku soo daro ayaa laga yaabaa ayaa leeyahay sidoo kale garab ayaa Arsenal ay u baahan tahay inkastoo oo aan oran lahaa Nelson tashi heshiis ka saxiixato Nelson Saka bedel ha kugu noqdo waxa kaaga muhiimsan oo ka muhiimsan in striker la helo Champions League ba u socotaa no more Europa League wasaq dambe ma jirto iyo back up iyo waxa ma jirto waxa laga baahan yahay inaad soo hesho ciyaaryahan number 9 sax ah oo game and game out goal ku dhalinayo Arsenal runtii sanadkan Omeko in ay maartay ay raadinayaan hatta wax soo hadal qaadaya ma arkin Arsenal inay strike ay raadinayso runtii waxa Jesus strike ma runtii Jesus wallahi billahi sanadkan hadii Arsenal 70 milyan ay ku heli karto haka gado waxa u baahan kii kale waxa u baahan Real Madrid u baahan ciyaartiisa meeshaas ay taala anaga rag badan qurux badan noo dheel karba haysana already Odegaard haysana Saka rag baasas qurux badan oo badan jiidi karo rag waa haysana anaga gool banaanka xitaa nooga dhalin karo u fahant waxa loo baahan yahay waa ciyaaryahan heedadiisa diyaarsan tahay dafta ku hayo wixii koona laga soo qaado wixii maartay lugta loo geliyo bidix iyo midigba ku qaadan karo ciyaaryahankaas Arsenal u baahan tahay ciyaaryahan laakiin maanta dib u soo degayo
oo inuu number 10 yahay in kala lagu kala wareeray. Arsenal hadda uma baahna Champions League loo soo baxay magac weyn iyo maartay history ana samaysartaa dib baa isku soo dhistay maartay adoo hadana Caicedo ina keensato iyo Declan Rice, Martinelli iyo Saka iyo Odegaard ay maartay garbaha ay dhaxal ku labada garab iyo khadka dhexe ay ku kala taagan yihiin ina hadana nimankii waa hore Arsenal qasaariyo kale Giroud iyo Welbeck iyo Ozil ka dhigay ragii Ozil u diiday inuu noqdo number 10 ka adduunka ugu fiicna ragaas oo kale ina isu soo istaajisay ma fiicno oo ogtihiin 2016 Arsenal waxay u qaadi weyday Premier League waxay ahayn Giroud in keedahan Danny Welbeck laba striker oo markii loo baahan yahay in gool aan xirin markaad u baahnayna gool iska xiraay ahayn in kastoo Danny Welbeck uu aad u sii xumaa u liitay haddana Giroud inuu season ka maartay banoon walbo season ka sida ogtiin Alexis Sanchez iyo waxa uu kacsana iyo Ozil wayna ka go'oonid inay qaadaan tii waxa hadda la mid ah oo ciyaaryahan number 10 fiican ah oo waliba ay leeyihiin dadka position-ka number 10 halka uu hadda baalku ka ciyaaray waa ciyaaryahankii ugu dambeeyay yaa la leeyahay oo maartay sida loo ciyaaro garanaya number 10 kaas football baryahan oo maartay modern football-ka way ka sii dhamaanaysaa number 10 kaas role-kaas ciyaarayo oo maartay striker ay u dhaxeeyo box to box midfield ciyaaryahanka maartay khadka dhexe iyo striker-yaasha rag u dhaxeeyo banoonta quruxda badan dheelo way ka sii dhamaanaysaa football waxa la Maradona yaa xaliir khadkaas ugu fiicnaa wax dheelo waxa ku soo xigay Messi oo hadana garab la dhigay in kasta oo maartay Messi garab la iska geyn jiray laakiin number 10 sax uu ahaa waxa kale oo garabka aad maartay lambarka aad u dheeli jiray Ozil maartay number 10 aad u yihiin waxa kamid ah James Rodriguez oo kaleete rag aad runtii maartay loogu amaanay tenkaas ayaga ay lahaayeen position ka in ayaga lahaayeen haddana waxa la yiri way ka sii dhamanaysaa sida aragteen 4-3-3 ya modern football-ka hadda la ciyaaro yaa la dheelaa markii waa number 10 ugu dambeeyay leeyahay xaggana hadii Jesus oo ku haleesho iyo Eden Ketia dhaxdu ka bixi waxa la rabaa ninkan oo kale season walba inuu maartay 21-25 assist inuu la soo baxo oo ninkan oo kale Ozil wax ku dhacay aysan ku dhicin waa markii in striker loo raadiyaa ninkan waa in qof loo soo qabtaa qof sida baalkii oo kale Osimhen oo kale taa aniga Napoli u dheelo iyo Vlahovic iyo rag lug iyo heedaba ka diyaarsan in loo soo helay u baahan yihiin ragaas oo kale sidoo kale iyaduna right back ay Arsenal ay raadinayaan waxaana leeyahay waxa laga yaabaa Southampton maadaama ay noqotay inay soo qaataan cunugan oo Kapita ay dhahan ee maartay u ciyaaro Southampton aad buu u fiican yahay waa cunug khatar ah waxaan leeyahay Arsenal inay lacag raqiis ay ku soo qaadato ayaa laga yaabaa Ben White na gadaashiisa uu noqdo ama ay isku caabiyaan labada boss hadii uu soo kaco Tomiyasuna Ben White wuxuu ku noqonayaa difaaciisa marka khiyaaray video ana ugu talagalay ma ahan runtii inaan kaga hadlo suuqeeda si specific ah laakiin waa anigu markaan saa u soo galay Arsenal inaan ku furfurto bay iga tustay video kale oo soo socda aan kaga hadli doono Arsenal iyo transfergada iyo lacagta ay ka heleen nimanka iskale clubka iyo lacagta Champions League ay ka helayaan maadaama ay qualification ay sameeyeen haddana waxay kaga tagayaan sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.